waad mudantiin in la idin hambaliyeeyo sababtoo ah Soomaali baad u hambaliyeenayseen laga soo bilaabo markii la bilaabay gobonnimadoonka waa idin hambaliyeenaynaa sababtoo ah ma noolaan karno idinka la'aantiin laga soo bilaabo 1947 ilaa hadda halgan walba oo dalkan ka dhashay raggu markay cabsadaan haweenka dhiiri gali jiray welina meeshii baa taagantiin waa ku mahadsantiin markii raggu dhaqaalahooda la bakhiilaana idinka bixiyo daabkiina iibiya markay dagaalka ka baqaanna idinka gelin jiray markay colaadda ku nagaadaanna idinka ka qaban jiray markii la isi imaan waayena idinka dadka iyo dalka isu keeni jiray madaxdii iyo dadkii aan hormuudkooda sharaftooda qirinna horumarkooda ayaa wax ka halaysan yihiin sidaas daraaddeed anigoo matalaya ragga Soomaaliyeed ayaan waxaan idinkugu imid inaan idin hambaliyeeyo idinkana mahad celiyo sidaad ummadda Soomaaliyeed u garab taagnaydeen halkan waxaan ka qiraynaa maanta iyo mar walba in haweenka Soomaaliyeed ay mar hooyooyinkeen yihiin waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin barbaarisadii soo barbaarisay waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin dhaqaale abuurto ay dhaqaalaha noo abuuraan waxaan halkan ka qiraynaa inay iyagu yihiin kuwa colaadda damiya marka dabka colaaddu kaco waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin kuwa kaliya oo qaraabeeya laba qoys labadaas qoys oo 20 noqota 20 kaas oo 200 noqota labadaas oo 200 noqota labadaas kun oo qaranka noqota waxaan aaminsanahay markaad halkan ka maqasheen gabdhihii halkan ka hadlayay inaysan hooyooyin kale oo kaliya ahayn ay hogaamiyeyaal yihiin ayna tahay in la siiyo doorkooda waxaan aaminsanahay naxariista dadka Soomaaliyeed ee dalku uu leeyahay inay ku fadhiyaan qalbiyada haweenka Soomaaliyeed qarniga 21aad oo adduunyada lagu tartamo aqoon iyo xirfad gaar ahaan dadka ayaan rabaa maanta inaan uga faa'iideysto hal fariin oo ah fariinta soo socota fariintaas iyada ah waxay tahay ragga Soomaaliyeed inaan fahamno haddii aan rabno inaan adduunyada la tartamo adduunyadana waxa lagu tartamo ay dad yihiin dadka tiradiisa iyo tayadiisuna ay muhiim tahay haddii dawladaha dariska iyo dawladaha horumaray ay nagula tartamayaan wiil iyo gabal walba oo iyagu wax bareen annaguna aan rabno kaliya inaan ku tartanno 50% bulshadeena ah sidee baan dunida isaga celinaynaa macnaheedu waxay tahay lama rabo inaan niraado gabdhahan xuquuq siinaynaa kaliya lama noolaan karo lana tartami karo adduunyada haddii aan la siin gabdhaha Soomaaliyeed xuquuq kaliya ma ahan xuquuqdooda oo dhammaystiran oo ah inta ay dalka ku leeyihiin kulligeen hooyooyin baan leenahay waalid baan leenahay walaalaan leenahay gabdhaha
وأكتهين وحبرشة الدنيا مانتا ويلشي قبلها كهرة شقدنا إيجا كون أكسن وحاينتا كسي درن أمانة دينا إيجا كون أكسن سيدا استرادت وعن سوجيدنا يا مادام أدقوش دالسان أتسود داشين دلال بدن والدنيا كامدنا أتكوه الرئيسان سيدا حقوق دي نقول دقالة ميسان وإن هذا جوجنا هلجنك دقالك أتوقو جرتان إن الحقوق دي نهشان أنت أولي فهمين وعن رغامرك إنا مكسو قنادو هوينك سوماليات وهلينك هورو مركان وهالبولها نلوشينا هوينك سوماليات وهرساتك هيرارك الرجالنا إذن كان وحان الله يا هجوجنا هلجنك هجوجنا هيكسيغا هجوجنا هرمركا همبليو